Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qaabilay Kusimaha Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan. Kulanka ay goobjoog ka ahaayeen Wasiir Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada, Xogayaha Joogtada ah ee Wasaaradda, Agaasimaha Agaasinka Waxbarashada Maamulka Gobolka Banaadir, iyo Agaasime waaxyada kala duwan ee wasaaradda ayaa waxaa looga hadlay taageerada Qaramada Midoobay ee arrimaha waxbarashada Soomaaliya, sidii kor loogu sii qaadi lahaa arrimaha wada shaqeynta Qaramada Midoobay ee waxbarashada Soomaaliya. Kulanka kadib waxaa warbaahinta uga warbixiyay Xogayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Waxbarashada, Xasan Maxamed Cali. maanta waxaa Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare xarunteeda Muqdisho lagu soo booqday Xogayaha Guud ee Qaramada Midoobay, James Swan, oo noogu yimid Wasaaradda Waxbarashada si aan uga wada hadalno xiriirka ka dhaxeeya Wasaaradda Waxbarashada iyo hay'adaha Qaramada Midoobay ee ka jooga Soomaaliya iyo sida la soo wada shaqeyn lahaa. Waxaan aad la isugu lafaguray barnaamijyada waxbarashada, taageerada waxbarashada ee labada dhinac. Waxaa loo sameeyay warbixin ku saabsan heerkii soo martay waxbarashada markii laga soo bilaabo markii laga baxay dowladaha ku meel gaarka ilaa maanta, heerarkii la soo maray dhinacyada kala duwan ee waxbarashada, haday noqon lahayd dhinaca macallimiinta, imtixaanaadka, dhismayaasha iyo wasaaradda ama kaabayaasha wasaaradda, dhinaca daatada sida loo soo xareey ama xogta ardayda sida maaragtay loo soo xareey, sida loo maamulo, haday noqon lahayd tii dugsiga hoose dhexe iyo haday noqon lahayd tii dugsiga sareba. Marka waxay aad ula dhaceen sida ay waxbarashada Soomaaliya u kortay 10 sano ugu dambeeyay iyo heerarka ay gaartay, iyo waxa sii dhiman oo ah runtii arday Soomaaliyeed oo weli dibadda ka joogta waxbarashadii una baahan in ardaydaas la soo xareeyo, lana fududeeyo sida ay ku soo xaroon lahayd, haday noqon lahayd dhismayaasha, haday noqon lahayd macallimiinta, iyo haddii ay noqon lahaydba u fududeynta kasoo qaybgalka waxbarashada oo laga maaragtay dhinaca waxyaabaha hortaagan in laga qaado sida dhaqaalaha iyo maaragtay iyo fogaanta iskuul la'aanta. Marka arrimahaas ayaa si fiican looga wada hadlay, waxyaabihii runtii laga wada hadlayna si fiican ayaa la isugu afgartay inay hay'adaha Qaramada Midoobay ay ku taageeraan wasaaradda waxbarashada waxa ay iyada rabto inay ku taageeraan, iyo jihada ay u socoto, iyo waxyaabaha ayaga hortaminta u leh wasaaradda waxbarashada inay ku taageeraan, maadaama hadda ay dowladdu sii xoogeysatay wasaaradda waxbarashadana ay u socoto inay maaragtay qaadato hogaankii waxbarashada dalka. Marka taasna waxaa la isku afgartay in wasaaradda waxbarashada lagu taageero waxyaabaha iyada hortaminta u leh. Marka shirkan wuxuu ahaa shir maaragtay miro dhal ahaa, waxyaabo badan ka soo baxay. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo miro dhalkiisa in la sii arko. Ayaan aadan Ciise, warbaahinta qaranka Muqdisho.